caqliyadayda yari way wareertay oo garan maayo waxaan meeshan dee ka socda allah hayaay waar wuxuu siduu yahay subxaanaka yaa cadiim waa la casoos guryihii inoogu timi miyaan ahayn iyadoo lugaynayso daahiriyaa shamisa nairobiga muddooyinkii u dambeeyey saldhig u ahayd siyaasadaada waxaa la sheegay intaad halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas-uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdiraxmaan ciri horkacayo oo aad ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada soomaaliya mudane farmaajo muftiga cabdiraxmaan ciri markaa nairobi ku kulanteen maxaa kaloo ka wada hadasheen waa dad soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan runtii doonaya caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray taasna waxay ku imaanaysaa midnimo aniguna waxaan u sheegay soomaaliya haddii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan ay mustaqbalka caruurtooda ay ka horumariyaan siyaasadda wafdigaasi si briefly ah yaan u kulannay runtii dee waxay sugayaan subxaanaka yaa cadiim bal xumaanta halkaa ku jirta eega ummaddu xumaha hadday iska qaban weydo ilaahayna ma gargaaro ummaddu haddii ay wanaagga isfari weydo ma tanaado subxaanaka yaa cadiim bal xumaanta halkaa ku jirta eega arrintaasi ma aha arrin la qaadan karo ma aha arrin la aqbali karo waa kicin dadweyne waa abaabul dagaal sokeeye waxaa ka warqabtee gurmadkii aanu ka geysanay beesha caalamka ee aanu ugu tagnay in shacbiga reer somaliland ee abaartu ku dhacday la taageero inkastoo xukuumaddu halkay ka taageeri lahayd ay ka xumaatay haddaan halkan uu ka yidhaahdo hayaay idinkuna aynu wada shaqayn weynana socon mayso war kan duubaya iyo kan ma kala duwana oo baarud iyo waraag halka ay maanta maraysaa waa maxay waxay ku mashquuleen inay sawirro isku kabkabaan oo ay been ka sameeyaan xisbiga waddani wixiisu waa cad yahay ama nairobi ha tago ama dibadda ha u baxo ama gudaha ha joogo barnaamij cad oo siyaasi ah ayuu doonayaa inuu dalka ku hogaamiyo ma af soomaali caadiya ma hees baa subxaanaka yaa cadiim saaxiib uurkaadigaga taal hayga aamin bixin haddii eebba yeelana waa nimanayaa war miyaan hadlayaa war miyaan heesayaa hoobaado ceeb bay ku tahay in somalilan la yidhaahdo soomaali baa lagu kabayaa mar labaad waxaas leeyahay waxay wax u dhimayaan somalilan waddani waxba u dhimi maayaan madaxdiisana waxba u dhimi maayaan himilada dadkay ceeb ka sheegayaan ay been ka sheegayaan bal imika oo aan hees saaro telefishin baan ka hadlayaa af soomaali baan sheegayaa dadku aad bay ii daawanayaan idinkuna may fahanteen aan muusig iyo laxan saaro bal ka warrama ilmaadeen rayaal dee miyay soconaysaa miyaanay waa licasahayn yaa cutubka koowaad ee barnaamijka siyaasiga ahi waa doonista gooniisutaagga somalilan waxay la tahay qaar baa u marmarsoonaya dee ninkii xamar doonaya iska tago qaar horeba way tageen macnaha waaran mise cadan baa laga heesayay mani hoo baarud daahir yaa shamis miyaanay ahayn iyadoo loo cumaamadin dad ay qoyan yihiin hagardaamadii iyo dhibaatadii ay dalka u geysteen oo ay muuqdaan xabaalihii shacbigii la gumaaday oo khayriyadda hargeysa ka lahaa anigu wax dili karaa duca qaadan maayo inay maanta ku eedeeyaan cid maxkamadda la soo taago haddii maxkamad la soo taagayo kuwa dadka laayay waxaa cad raadkii muuse uu galay jidgooyada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qof waliba wogi walaalayaal waxay la tahay muuse dadka wuxuu leeyahay aakhiran u diraya oo halkan jooga howlwadeenadii xisbiga ee dhaawaca loo geystay ee la doonayo in la bajiyo marka waxaas leeyahay nin baa nin la kulmay
xamar geeliya dadka waxaa ka dhigo mara ka aakhiro u dirayo la hadalaayo isagu wuxuu dadka hadalaayo dee waxay la kaliftay markiina la dhegeysan waaye inaanu kaliibadii keenno marba hadday youtube-ka ku jiraan oo la daawanayo bal inaanu dadka nidhahdo war maxaa lagu haystaa safarka iyadaasi wuxuu safar gurmud Somaliland ah oo aan waxba ku barxanayn waxa la wax ku barxanaa ma jirin ragga meesha marayay rag Somaliland laga shakeeyo maaha waan marayay maxamed bixiyeen baa marayay xirsi xaaj cali baa marayay abdulsaaq khaliif baa marayay maxamed fadal baa marayay rag farabadan madaxweyne ku-xigeenka xisbiga marayay waxaa tahay qofna loogama shakeeyo Somaliland backgroundkiisana ma leh maanta wixii ka dambeeyay kaliibo imanaya kaliibo qof waliba wixii uu galabsaday subxaanaka ya cadiim waxay la tahay sawir la isku xakamadeynayo hada website waxa ku yaalay social media muusoo la sawiran Xasan Sheekh sawir lagu dhijiyay meel waxay la tahay isna dawal maxkamadeyn doona hadii sawir la isku maxkamadeynayo aqliyada yar way wareertay garan maayo waxan meeshan de ka socda waxaan qabaa umada yaan dhala hawaabinin waa la tartamaya sheekooyinkii beriga hore socon maayaan garoonka ku xaalan marna ku tartano waxaa la muuse taariikhdaaduna way cadday tayduna way caddahay dalkana badbaadadiisaan doonaynaa xisbi dalka badbaadinaya weeye waxaan diyaar u nahay inaan tartano shacbigu hadda waxa way ka ilbaxeen shubuxda la tumayo waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland way in kala caddahay ka dalka badbaadinaya ka dalka midaynaya ka shacbiga isku tolaya iyo ka shacbiga qaybinaya wadaadadii mee dadkii wax qaban jiray mee waa baaruudi waa waliyo as oo luganaysa ayaa isugu buugasho oo inoo heestay dayibka inaga waliyo as ayaa isugu ku dabaalato oo heestay ya yani bal walaalayaal eega subxaanaka ya cadiim deenaadeer ilaahay baa ceebka nasahan yani waa baaruudi daahir ya shamis ma jirin daahir ya shamis hore إنك داهر يا شمس تي تاي